Bismillahirrahmanirrahiim. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay transmitter. Transmitterkan ayaan test gareynayaa. Waxaan ku xiray multimeter, waxaan ku xiray gauge-kan, waxaan ku xiray kale power supply gas. So power iyo waxa kale ha hilmaamin 250 ohm ayaa ku xiran sida kaas currentiga uu arko. Currentiga waxaan kaloo ku xiray pumpkan. So transmitterkan waxaan simulate gareynayaa pressure-ka. Hadda waxaan pressure aan siinoyaa. Maxaan rabaa pressure-kan siiyaba inuu transmitterka oo akhrinayo oo siinayo the output-ku siinayo milliamp sax ma u siinayaa mise milliamp qaldan u siinayo. Hadduu milliamp qaldan siinayo waxaan ku sameynaa calibration. Hadduu milliamp sax siinayo oo wixii loogu talagalay inuu siiyo, then waxaan dhahaa okay. Laakiin markii horeba aan baroobeeyay markaan baroobeeyay adiga 0% waxaan helay intaas 25% waxaa helay intaan 50% waxaa helay intaan. Kuwan waa milliamp, kan waa percentage ka. Ma fahantay? Tan kalena kana unit kana kan waa maxaa way KPI kana waa KPI 6 KPI waay upper range value is so upper range value iyo low range value lahaa markaad aad fahamsan tahay qaabka calibrationka loo sameynayo 5 point ama dadka qaarkiis 10 point ay ka dhigaan, laakiin aniga badanaa 0, 25, 50, 75, 100. So 100 markaan ka dhigno 100% waxaan rabaa 20 milliamp inuu meterkayga akhriyo. Tan kalena pressure-ka aan apply garey doono ama aan sii doono unitkan wuxuu noqon doonaa eber. Hadduu ku taagan yahay 4 milliamp waaye, ka bacdi 1.5, ka bacdi 3, ka bacdi 4.5, ka bacdi 6 ka badan ma sii kari sababtoo bahalkan 6 ka badan ma qaada. 6 KPI aad u yar tahay. Ma fahamta 6 KPI pressure marka hadda inta fiiriso kan aniga ku dhajiyay high side aad ku dhajinaysaa, ka bacdi waxaan apply ku sameynayaa pumpkan apply ku sameynayaa. Markaan ku sameeyo ka bacdi waxaan fiirinaa aamku siinayaan fiirinaa wariyaan ku daalinin. Hadda anako pressure aan siinoya hadda aamku sidoo isku beddelay fiiri. So 6 wuxuu noqday 25% aan dhaho 30% may maxaa rabaa 25% inuu ahaado. Percentage-ka waxaan meeshaan waa fiirino percentage-kaas fiiri aamkana kor kuuga sheegoyaa. So 25% aan siinaa 25%. Mujeedaa kan waa maxaa 1.5 KPI waay. Let's see it. You see? Waxaan siinaa hadda waxaan ka dhigaa 50 aan ka dhigaa 50% aan ka dhigaa. aan ka dhigaa 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 50 waa kaas ahaa. Waa kaas ahaa 12 milliamp oo siiyay. Waa sax, waa intaa filanayay. Kan kale maxaa way KPI-na waxaan filanayaa 6 halfkiisu waa 3 saddexdaasaan filanaa. Okay.
saddex haddaan ka dhiga soo 50 waa 75 aan ka dhigaa haddaan 75 ka dhigo waxaan filanaa waxaan filanaa 1.5 4.5 aan filanaa oo kPa laakiinse intaan fiirinayaa 75 aan ka dhigaa currentigana wuxuu noqonaa arki doonaa meeshaan noogu sheegi doonaa adiga 75 da 75 75 aan ka dhignay ilaa kuma darnaado ya 75 aan ka dhigay waa kaasaa 75 4.5 oo kPa ah kaasna 16 so waxaan ka dhigaa marka kanaan bal hadda kan 20 aan ka dhigaa kaas wuxuu noqon doonaa 100% uu noqon doonaa kanna wuxuu noqon doonaa ilaa hadduu yiraahdo 6 uu noqon doonaa so waxaan ka dhigaynaa 20 18 17 18 19 20 ogow markaan aan pumpigaasaan dabeesha ku siinoyaa sababto pumpigaan siinoyaa pumpiga toos usoo socdo halkaan uu galoyaa so waxaan siinayaa halkaan uu tusinayaa intaasi so 6 kPa aamkaygana waa kaas ahaa 100% bal accuracygiisaan fiirina aan yaraan ugu yareeyo sababtoo digitkaas naftu waa ka saaraa bisi aan fiirina halkaan 6 kPa markaasna fiira halkaasna fiira waa 100 marka cashirkeeni kan uu ku saabsan yahay so haddaan rabo inaan calibration ku sameeyo muhiimadda waa maxaa way haddaan halkaan oo kale aan joogo badanaa intaan ka furaa wuxuu leeyahay dib switch haddaad fiirisid halkan dib switch oo leeyahay 0 mujeeda mujeeda halkan 0 halkan span so switchka haddaan 0 geeyo kabacdiyaan mujeeda meeshaan aan furaa kabacdi 0gaa sarab garayna screw yaraa ku jira 0gaasaa sarab garayna wareejinaa haddana waan soo noqonaa waxaan geynaa spanka kabacdi waxaan ka dhigaa haddana 6 ama 20 milliamp ama 6 kPa so saasaa u sarab garaynaa marka aan dhammeynaa laakiinse badanaa maadaama bahalkan uu ku xiran yahay meel oil oo halisteeda leedahay lama rabo in la fafiyo la furfuro marka waxaa jira baxal la dhahay hard communication kana lagu xiraa kan markii lagu xiro halkaan ugu xiraysaa kabacdi calibration ku sameynay markala kaasna sameey doona ilaa doo yiraahdo balse hadda maxaa rabaa inta dadka ay fahmaan qofkii hadda drawing u baahantana sidoo iskugu xiran yahay waa ku sawiraa si fiican hoos aan kugu dhaji doona waad arki doontaa sidoo iskugu dhagan yahay 120 aan ku dhagan qaabka iskugu dhajiyay hayga meesha ugu dhagan yahay mafahant غير أي رجينا خيارته إن معته ده سؤال قبتي مسج أما مسجر هلك هوس قر وإن كان سو جوابه غير مع السلامة.